dhammaan waa idin salaamay. Waxaan rajaynayaa inaad caafimaad qabtaan. Waxaan xaggan ku baran doonaa casharkeennii labaad, duubista codka nadiifta ah. Casharkeennii hore intii la socotay, waxaan soo aragnay sida loola soo dego application-kii lagu duubayay codka nadiifta ah ee cleanvoice.ai ahaa. Tusaalena waan soo aragnay. Casharkan waxaan ku baran doonaa dabeecadda uu leeyahay interface-kan ama wajahada barnaamijkan cleanvoice dabeecadihiisa. Marka ugu horeysa casharkeennii hore intii la socotay waa soo aragnay waxaa la furayaa cleanvoice. haddaadan casharkii hore la soconin fadlan waxaan kugula talinayaa casharkii koowaad soo daawato cleanvoice.ai. markaad intaa qorto waxaa kuu furmaya wajahadii ama interface-kii cleanvoice-ka. markaad cleanvoice-ka furato waxaa hoosta ku yaala meel dhahaysa login-ka markaad gasho, maadaama aan ku soo samaysanay account casharkeennii hore, hadda account-keennii baan toos u tagaynaa. account-ka markaan galayno waan ka taxadaraynaa. meeshan waa sidii hore noogu soo sameeyey account-ka waan soo confirm garaynay. markaad gasho waxaa kuu soo baxaya wajahadii dhabta ahayd ee interface-ka. marka waxa ugu muhiimsan aan rabo meeshan inaad aragtaan waxaa weeyaan meeshan waxaa ku taala balansigaaga. haddaanu 26 minute yaan balance haystaa. 30 daqiiqo balance ayaa bogsiinaya marka ugu horeysa samaysato. casharkeennii hore markaan samaysanaynay ugu horreysay 30 minute baan haysanay. 4 daqiiqo ana waxaan u isticmaalay voiceska ku clean gareeyey. hadda waxaa ii harsan 26 minute. 26ka minute aan haysto. hadda haddii aan mid kala qaato daqiiqad iyo 2 waxaan isticmaalo oo iga jaraya. 30kan markay dhammaato waxaad ogaataan kadib lacag buu weydiin doonaa barnaamijkan. markaad voice-ka cusub aad soo voice normal ah gubto, markaad rabto inaad ku nadiifiso meesha audio ku qoran tahay iyo taabanaysa. meeshan waxay ku leedahay profiles ama profiles. markaad browse tiraahdo waa inuu marka hore kuu diyaarsanaado codkii la nadiifinayay oo aad soo save garaysay, ama mobile kusoo duub ama meel kale kusoo duub. marka anu folder-kan igu save garaysan yahay mid aan diyaariyaa jira idinla wadaagi doonaa. codka normalka ah ayaan soo qaadanaa. kaa normalka u qoran tahay nadiif ma aha. open baad dhahaysa. markaad open tiraahdo meesha ay ku qoran tahay upload baad ku dhufanaysaa. isla marka aad upload tiraahdo meeshan waxaad aragtaa inuu upload garaynayaa uu dhameeyey. upload-ka markuu 100% gaaro oo 100% uu noqdo, xaggan hoose ayaad imanaysaa. waxaad ku dhufanaysaa start processing. start processing markaad tiraahdo meeshan iyada ah way wareeganaysaa. percentage-kiina xaggaas buu tusayaa. percentage-ka markuu dhammeeyo yaad dhahaysaa check. waa kan hadda waxaan joognaa meeshii codka aan nadiifinay. ka hor intaynaan dhegeysanin codkan aan nadiifinay waa inaan marka hore soo aragnaa codkii hore siduu ah. codkii hore haddaan idin tuso qaabkan ayuu ahaa. normal voice markuu ahaa. haddaad dadku weyso sameecada waxaad dareemaysaa dabayl iyo xagga background-ga codkaada nadiif maaha. dabayl iyo waxbaa ku furan iyo hawi waxaa laga maqlayaa. aan wada dhegeysano. daawadayaasha digow social life skills, waxaan xaggan ku baran doonaa sida loogu duubo codka nadiifta ah mobilekaada adigoo isticmaalaya. adigoon PC waxa isticmaalaynin yaad baran doontaa sida codka nadiifka loo duubo. codkii hore hadda cleanvoice-kii aan ku nadiifinay. markaan joogno haddaan shidnay isla kii hadda aa samaacadda dhigtuu dhaweyso. daawadayaasha digow social life skills, waxaan xaggan ku baran doonaa sida loogu duubo codka nadiifta ah mobilekaada adigoo isticmaalaya. adigoon PC waxa isticmaalaynin yaad baran doontaa sida codka nadiifka loo duubo. marka waad aragtaan meeshii aan idin lahaa meeshan balance-ga ee kore markii hore wuxuu ahaa 26 minute. hadda codkan isaga ah waad aragtaan
cod hal daqiiqo ah markaan ku fiiriyey 26 credit aan haystaa hadda marka waxay ka dhigan tahay 25 baan hadda haystaa waxa uu leeyahay marka qaabkaas ayaa loo isticmaalaa aad iyo aad ay mahadsantihiin